doono xukuumadda iyo wasaaradahan iyo commissionkuna qorshaanu ka leenahay markaasi qiimayaasha ay dadku ka cabanayaana qorshaadooyinkii ugu dambeeyay waxa uu khilaaf xoogani ka dhex taagnaa cidda korontada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer siinaysa waxaana ay saystay shirkadii hore u bixin jirtay korontada ee loo yaqaan Heeka iyo shirkad cusub oo dhawaan ku dhawaaqday inay bixin doonto iyaduna adeega korontada si xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay arrinkaasi xal ugu heshana madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu arrinkaasi u saaray guddi ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland subaxan saaka ah wafdidii loo xil saaray arrintaasi waxay u kicitimeen xarumaha kala duwan ay shirkadaha isku haysta leedka Burco ay ku leeyihiin magaalada Burco ugu horeyn waxay booqdeen goobaha ay yaalaan mishiinada waaweyn ee shirkadda adeega korontada bixisa ee Heeko ay ugu adeegto bulshada waxaana ay isha soo saareen bal hadda qaabka ay u shaqeeyaan sidoo kale waxay booqdeen xafiiska guud iyo xarunta guud ee shirkadda adeega korontada bixisa ee Heeko ay ku leedahay magaalada Burco oo si caadi ah ay shaqadu u kala socoto hawlwadeenada ayay wareysteen waxaana sidoo kale soo indheeyeen bal qaabka ay u shaqeeyaan xafiisyada cabashada dadweynaha iyo sidoo kale goobaha customer caring-ka ah ee shirkadda adeega korontada bixisa ee Heeko sidoo kale waxay isha soo saareen gaadiidka iyo shaqaalaha kala duwan ee shirkadda Heeko ay u adeegsato adeeg bixinteeda maalinlaha ah مسؤولين كتير سن شركة هيكو أيانا مسؤولين تنو جور بحيي وفتدن بلارن مدحوين عبد الرحمن عرو ومقعابي حلو هليدا كورنتدا برعو قاب كايو شقيان حرمها كلا دوان شركة هذيك كورنتدا بحسه هيكو waxaan makanni power house-ki number 1 ka ahaa waxa ka soo baxa 330 kun oo kVA waxay yimaadaan power house-ka labaad laba leen baa ka soo baxa waxaana ay isha soo saareen bal hadda qaabka waxa ka baxa 4 leen oo magaalada gala labana bari bay gashaa labana galbeed bay gashaa dab magaaladu leedahay oo heshaa haddii mid labada power house mid wax ku dhacaan ama uu cadilaad ku timaado isla markiiba waxa loo soo wareejiyaa power house-ka kale marka ma dhacdo in dab waa dhaco ama ay magaaladu u baqtido waa laga yaabaa wax yar oo deelayna ama xaafadii inay wax yar noqdaan marmar laakiin in magaaladu baqtido aad iyo aad baa looga taxadiray sidaa daraadeed baa loo sameeyay labada power house iyo labada dab ee kala quwadda ah ee 330 kun kVA iyo 11 kun kVA marka halkan waa caynka transformerdan naga dambeeyana waa kuwii kala bedelayay ka dhigayay 330 ka dhigayay 11 sidaas aan information ka ku bixinaynaa waxaanu u sheegaynaa mujtamaca inaan dab la'aan shirkadda Heeka aan ka jirin magaalada Burco dabka aynu u shidnaa aad iyo aad ugu filan yahay waxa waa sheeyna aan ka jirin dab yaraan meel laba ilaa muddo imaka 5 sanadood 6 sanadooda ma jirin wax dab yaraan oo magaaladan laga cawday ama laga soo sheegay intaasi kadib waxay wafdidu u kicitintay dhanka iyo xarunta guud ee shirkadda Alnur Energy oo ah shirkad cusub oo dhawaan la sheegay inay rabto inay bixiso adeegyada kala duwan ee korontada ee magaalada Burco intaasi kadibna wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah gudoomiyaha guddida uu madaxweynuhu u magacaabay xal u helidda khilaafka ka taagan korontada Burco oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay ujeedka safarkooda iyo waxyaabaha ay indhaha soo saareen runtii halkan magaaladaanu nimidnay waxaanu u nimidnayna waxa ahayd kormeer aanu ku eegayno kuna indheyndeynayno marka xaaladda korontada ee magaalada Burco gaar ahaan waxaanu xooga saaraynay inaanu ogaano cabashooyinka dadweynuhu ay qabaan waxaanu la kulannay markaasi dad kala duwan oo acyaanta magaalada ah oo runtii ka xog wareysanaynay cabashooyinka korontada ee magaalada waxaanu la kulannay markaa shirkadihii iyaguna khilaafku uu dhexdooda ka jiray waxaanu soo eegnay dhammaan xarumahoogii baanu soo eegnay iyadoona ognahay xukuumadduna ay ogsoon tahay wasaarad ahaan iyo commissionkuna aanu ku wada soconno inuu leydhku yahay nolosha dadka runtiina uu ka mid yahay national security-ga waddanka ama amniga qaranka uu ka mid yahay runtii kormeerkaasoo ay naga soo horreeyeen guddi farsamo oonu soo dirnay oo magaalada ka soo diyaariyey macluumaad dhammaystiran oo annaguna macluumaad labaadan u baahnayna halkan aanu ka soo dhammaystirnay dhammaanna waanu soo wada eegnay runtiina waxaanu rajaynaynaa markaasi in khilaafkaanu xallin doono xukuumadda iyo wasaaradahan iyo commissionkuna
qorshaanu ka leenahay markaasi qiimayaasha ay dadku ka cabanayaana qorshaanu ka leenahay mid dhow iyo mid dheerba qorshaanu ka leenahay qorshahaana insha allahu tacaala waxaanu gaari doonaa muddo dhow baanu gaari doonaa dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa inay istejiyaan amniga ilaaliyaan maadaama uu korontaduna ka mid tahay national security-ga waddanka ama amniga qaranka dhammaan iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ugu hogaaminayo xukuumaddu waxay awoodda saartay in korontada waddanka guud ahaan oy togdheer iyo burcana ka mid tahay in xal loo helo hadday tahay tayada hadday tahay isku hadlaynta hadday tahay badqabka iyo hadday tahay qiimahaba in xal loo helo ayay xukuumaddu mar walba diyaar u tahay wasaaradduna wixii siyaasaday ku hogaaminaysaa wixii regulationisa na waxaa wada oo shaqada gacanta ku haya komishanka korontada qaranka somalilan aad baad u mahadsantihiin oo islaamayna assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu